saacadihii la soo dhaafay dadka wax ka qora arrimaha gudaha ee Itoobiya iyo shakhsiyaadka ka soo horjeeda hanaanka siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed waxa ay baahiyeen war ku saabsan badqabka Abiy Ahmed oo ay sheegeen in la dhaawacay lana sumeeyay taas oo sii kordhisay shakiga ah inaan la arkin tan iyo bilowgii bishan January sida ay sheegayaan macluumaadka kooxahani ay baahiyeen Abiy Ahmed ayaa rasaas lagu furay goob uu ku sugnaa toddobaad ka hor taas oo ku taalla aba ka mid ah ismaamulka uu ka soo jeeday Oromia waxayna sheegeen inuu dhaawac ka soo gaaray laakiin ma jirto cid caddayn u haysa koox kale oo isla kooxahan ka mid ah waxa ay ku doodeen in la sumeeyey loona duuriyey mid ka mid ah waddamada reer Yurub taasna ay dhacday toddobaadkan gudihiisa Abiy Ahmed ayaa ka maqnaa fagaarayaasha warbaahinta iyo kuwa dadweynaha waxaana soo muuqanayay muddooyinkii u dambeeyey xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisa ee xilkaasi isku haya taas oo ay sheegeen dadka warkan baahiyey inay ku jirto marxalad kale oo ay tahay in la hubiyo sidoo kale qoraallo lagu baahiyey baraha bulshadu ku xidhiirto waxaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad loo duuliyey ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga taas oo ay sheegeen inay ka dhalatay dhaawac iyo sumayn soo gaartay labada ki ay tahayba subaxnimadii hore ee maanta fariin qoraaleed la soo dhigay barta Twitter-ka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya laguna qoray afka Amxaariga waxaa lagu sheegay inaysan waxba ka jirin warka la baahiyey qoraalka lagu daabacay bartan ayaa lagu yiri waxaan jecelnahay inaan shacabkeenna qof walba xasuusino in wararka been abuurka ee lagu baahiyey baraha bulshada kuna saabsan ammaanka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay yihiin been abuur ayaa lagu soo koobay fariinta gaaban ee afka Amxaariga laguna qoray barta gaarka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ma jirto faahfaahin ay bixiyeen hadalhayeennada Itoobiya waxaana macluumaadkan aad u gudbiyey qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Tigreega ee TPLF ee looga guuleystay dagaalkii ka dhacay dalkaas gaar ahaan gobolka waqooyiga dhaca bishii November ee sanadkii hore ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay baarlamaanka dalkiisa inuu dhowr jeer ka badbaaday isku daydil oo ay maleegeen kooxo leh dana shisheeye isagoo xilligaasi ku eedeynaya inay ka shaqeeyeen ficiladaas qaar ka mid ah sirdoonka dalkiisa oo ay talada xilligaasi hayeen kooxda TPLF hoggaankana u hayeen ciidanka sirdoonka Abiy waxa uu ka mid ahaa madaxda ugu badan ee adeegsada warbaahinta isagoo inta badan ka soo muuqan jiray xafladaha iyo kulamada tooska waxa kale oo marar badan uu qayb ka qaatay olayaal ay ku jiraan dhirbeeris taasoo kalifi jirtay in xilli kasta la arko Abiy oo lagu tilmaamay siyaasi dhagar badan ayaa waayitaankiisa baraha bulshada iyo adeegsilaantiisa hadda ee saxaafadda ay shaki gelisay qaar ka mid ah shacabka dalkaas oo isweydiiyey dhacdooyinka la wariyay iyo maqnaanshaha Abiy si weyn ayay isku hayaan taageerayaasha kooxdii TPLF ee mar haytan ugu awoodda badan geeska Afrika iyo kuwa xisbiga BB ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed ka hadda haya talada Itoobiya waxay inta badan baraha bulshada la wadaagaan macluumaadyo iska soo horjeeda ayadoo ay qolo kasta doonayso inay noqoto cidda taageerayaasha ugu badan ku leh baraha bulshada Itoobiya waxa ay hadda cagaha kula jirtaa xiisado uga imaanaya dibadda iyo gudaha waxa ka mid ah waqooyiga dalkaas oo weli deganaansho aan rasmi ah lagu soo celin waa gudaha marka laga hadlaye dhanka Suudaan oo bilowday inay qabsato marino muhiim ah taas oo Addis Ababa ay ka carootay xukuumadda Khartoum waxa ay dhawaan sheegtay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula heshiiyey inay qaybsato dhulka lagu muransan yahay taas oo dood iyo falcelin badan ka dhalisay gudaha Itoobiya laakiin qoraal kooban oo xilligaasi warbaahinta looga soo dusiyay dhinaca Itoobiya ayaa been abuur lagu tilmaamay sheegashada Khartoum dadka la socda siyaasadda Itoobiya waxa ay ku sifaynayaan maqnaanshaha waqtigan xasaasiga Abiy Ahmed inay tahay farsamo cusub oo uu ku maqan yahay qorshe kale oo uu ku wajahayo arrimaha kala soo gudboonaaday Suudaan gaar ahaanna sidii u kala furfuri lahaa qorsharaha masaarida ay gadaal ka riixayso ee Khartoum ay damacsan tahay maamulka uu ka soo jeeday Oromia waxayna sheegeen inuu dhaawac ka soo gaaray laakiin ma jirto cid caddayn u haysa koox kale oo isla kooxahan ka mid ah waxa ay ku doodeen in la sumeeyey loona duuriyey mid ka mid ah waddamada reer Yurub taasna ay dhacday toddobaadkan gudihiisa Abiy Ahmed ayaa ka maqnaa fagaarayaasha warbaahinta iyo kuwa dadweynaha waxaana soo muuqanayay muddooyinkii u dambeeyey
xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisa ee xilkaasi isku haya taas oo ay sheegeen dadka warkan baahiyey inay ku jirto marxalad kale oo ay tahay in la hubiyo sidoo kale qoraallo lagu baahiyey baraha bulshadu ku xidhiirto waxaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad loo duuliyey ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga taas oo ay sheegeen inay ka dhalatay dhaawac iyo sumayn soo gaartay labada ki ay tahayba subaxnimadii hore ee maanta fariin qoraaleed la soo dhigay barta Twitter-ka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya laguna qoray afka Amxaariga waxaa lagu sheegay inaysan waxba ka jirin warka la baahiyey qoraalka lagu daabacay bartan ayaa lagu yiri waxaan jecelnahay inaan shacabkeenna qof walba xasuusino in wararka been abuurka ee lagu baahiyey baraha bulshada kuna saabsan ammaanka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay yihiin been abuur ayaa lagu soo koobay fariinta gaaban ee afka Amxaariga laguna qoray barta gaarka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya ma jirto faahfaahin ay bixiyeen hadalhayeennada Itoobiya waxaana macluumaadkan aad u gudbiyey qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Tigreega ee TPLF ee looga guuleystay dagaalkii ka dhacay dalkaas gaar ahaan gobolka waqooyiga dhaca bishii November ee sanadkii hore ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay baarlamaanka dalkiisa inuu dhowr jeer ka badbaaday isku daydil oo ay maleegeen kooxo leh dana shisheeye isagoo xilligaasi ku eedeynayeen inay ka shaqeeyeen ficiladaas qaar ka mid ah sirdoonka dalkiisa oo ay talada xilligaasi hayeen kooxda TPLF hoggaankana u hayeen ciidanka sirdoonka Abiy waxa uu ka mid ahaa madaxda ugu badan ee adeegsada warbaahinta isagoo inta badan ka soo muuqan jiray xafladaha iyo kulamada tooska waxa kale oo marar badan uu qayb ka qaatay ololayaal ay ku jiraan dhirbeeris taasoo kalifi jirtay in xilli kasta la arko Abiy oo lagu tilmaamay siyaasi dhagar badan ayaa waayitaankiisa baraha bulshada iyo adeegsi la'aantiisa hadda ee saxaafadda ay shaki gelisay qaar ka mid ah shacabka dalkaas oo isweydiiyey dhacdooyinka la wariyay iyo maqnaanshaha Abiy si weyn ayay isku hayaan taageerayaasha kooxdii TPLF ee mar haytan ugu awoodda badan geeska Afrika iyo kuwa xisbiga BB ee uu hogaamiyey Abiy Ahmed ka hadda haya talada Itoobiya waxay inta badan baraha bulshada la wadaagaan macluumaadyo iska soo horjeeda ayadoo ay qolo kasta doonayso inay noqoto cidda taageerayaasha ugu badan ku leh baraha bulshada Itoobiya waxa ay hadda cagaha kula jirtaa xiisado uga imaanaya dibadda iyo gudaha waxa ka mid ah waqooyiga dalkaas oo weli deganaansho aan rasmi ah lagu soo celin waa gudaha marka laga hadlayee dhanka Suudaan oo bilowday inay qabsato marino muhiim ah taasoo Addis Ababa ay ka carootay xukuumadda Khartoum waxa ay dhawaan sheegtay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula heshiiyey inay qaybsato dhulka lagu muransan yahay taas oo dood iyo falcelin badan ka dhalisay gudaha Itoobiya laakiin qoraal kooban oo xilligaasi warbaahinta looga soo dusiyay dhinaca Itoobiya ayaa been abuur lagu tilmaamay sheegashada Khartoum dadka la socda siyaasadda Itoobiya waxa ay ku sifaynayaan maqnaanshaha waqtigan xasaasiga Abiy Ahmed inay tahay farsamo cusub oo uu ku maqan yahay qorshe kale oo uu ku wajahayo arrimaha kala soo gudboonaaday Suudaan gaar ahaanna sidii u kala furfuri lahaa qorsharaha masaarida ay gadaal ka riixayso ee Khartoum ay damacsan tahay siyaasiga ka soo horjeeda hanaanka siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed waxa ay baahiyeen war ku saabsan badqabka Abiy Ahmed oo ay sheegeen in la dhaawacay lana sumeeyey taasoo sii kordhisay shakiga inaan la arkin tan iyo bilowgii bishan January sida ay sheegayaan macluumaadka kooxahani ay baahiyeen Abiy Ahmed ayaa rasaas lagu furay goob uu ku sugnaa toddobaad ka hor taas oo ku taalla aba ka mid ah ismaamulka uu ka soo jeeday Oromia waxayna sheegeen inuu dhaawac ka soo gaaray laakiin ma jirto cid caddayn u haysa koox kale oo isla kooxahan ka mid ah waxa ay ku doodeen in la sumeeyey loona duuliyey mid ka mid ah waddamada reer Yurub taasna ay dhacday toddobaadkan gudihiisa Abiy Ahmed ayaa ka maqnaa fagaarayaasha warbaahinta iyo kuwa dadweynaha waxaana soo muuqanayay muddooyinkii u dambeeyey xubnaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisa ee xilkaasi isku haya taas oo ay sheegeen dadka warkan baahiyey inay ku jirto marxalad kale oo ay tahay in la hubiyo sidoo kale qoraallo lagu baahiyey baraha bulshadu ku xidhiirto waxaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad loo duuliyey ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga taas oo ay sheegeen inay ka dhalatay dhaawac iyo sumayn soo gaartay labada ki ay tahayba subaxnimadii hore ee maanta fariin qoraaleed la soo dhigay barta Twitter-ka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya
laguna qoray afka Amxaariga waxaa lagu sheegay inaysan waxba ka jirin warka la baahiyey. qoraalka lagu daabacay bartan ayaa lagu yidhi waxaan jecelnahay inaan shacabkeenna qof walba xasuusino in wararka been abuurka ee lagu baahiyey baraha bulshada kuna saabsan ammaanka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay yihiin been abuur. ayaa lagu soo koobay fariinta gaaban ee afka Amxaariga laguna qoray barta gaarka ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya. ma jirto faahfaahin ay bixiyeen hadalhayeennada Itoobiya, waxaana macluumaadkan aad u gudbiyey qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda Tigreega ee TPLF ee looga guulaystay dagaalkii ka dhacay dalkaas, gaar ahaanna gobolka waqooyiga dhaca. bishii Nofeembar ee sanadkii hore, ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay baarlamaanka dalkiisa inuu dhowr jeer ka badbaaday isku daydil oo ay maleegeen kooxo leh dana shisheeye, isagoo xilligaasi ku eedeynaya inay ka shaqeeyeen ficiladaas qaar ka mid ah sirdoonka dalkiisa oo ay talada xilligaasi hayeen kooxda TPLF, hoggaankana u hayeen ciidanka sirdoonka. Abiy waxa uu ka mid ahaa madaxda ugu badan ee adeegsada warbaahinta, isagoo inta badan ka soo muuqan jiray xafladaha iyo kulamada tooska ah. waxa kale oo marar badan uu qayb ka qaatay ololayaal ay ku jiraan dhirbeeris, taasoo kallifi jirtay in xilli kasta la arko. Abiy oo lagu tilmaamay siyaasi dhagar badan ayaa waayitaankiisa baraha bulshada iyo adeegsi la'aantiisa hadda ee saxaafadda ay shaki gelisay qaar ka mid ah shacabka dalkaas oo isweydiiyey dhacdooyinka la wariyay iyo maqnaanshaha Abiy. si weyn ayay isku hayaan taageerayaasha kooxdii TPLF ee mar haytan ugu awoodda badan geeska Afrika iyo kuwa xisbiga BB ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed ka hadda haya talada Itoobiya. waxay inta badan baraha bulshada la wadaagaan macluumaadyo iska soo horjeeda, iyadoo ay qolo kasta doonayso inay noqoto cidda taageerayaasha ugu badan ku leh baraha bulshada. Itoobiya waxa ay hadda cagaha kula jirtaa xiisado uga imaanaya dibadda iyo gudaha. waxaa ka mid ah waqooyiga dalkaas oo weli deganaansho aan rasmi ah lagu soo celin. waa gudaha marka laga hadlayee dhanka Suudaan oo bilowday inay qabsato marino muhiim ah, taasoo Addis Ababa ay ka carootay. xukuumadda Khartoum waxa ay dhowaan sheegtay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya kula heshiiyey inay qaybsato dhulka lagu muransan yahay, taas oo dood iyo falcelin badan ka dhalisay gudaha Itoobiya. laakiin qoraal kooban oo xilligaasi warbaahinta looga soo dusiyey dhinaca Itoobiya ayaa been abuur lagu tilmaamay sheegashada Khartoum. dadka la socda siyaasadda Itoobiya waxa ay ku sifaynayaan maqnaanshaha waqtigan xasaasiga Abiy Ahmed inay tahay farsamo cusub oo uu ku maqan yahay qorshe kale oo uu ku wajahayo arrimaha kala soo gudboonaaday Suudaan, gaar ahaanna sidii u kala furfuri lahaa qorshaha masaarida ay gadaal ka riixayso ee Khartoum ay damacsan tahay.